Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay su'aal uu ina soo weydiiyey mid ka mid ah asxaabta ku xiran channelkeena Zimikis. Su'aashiisuna waxay tahay sida tan: mahadsanid saaxiib, waxaan ku weydiinayaa sidee qoraal kale oo yar loogu dhex qoraa, micnaha sida thumbnailka videogan. Macnaha wuxuu ka hadlayaa videogan thumbnailkiisa ayuu ka hadlayaa sida loo sameeyo. Marka aan ku tusayo sida ugu fudud ee loo sameyn karo. sida ujeedo waxaan rabaa in aan qoraal kale aan dhexgeliyo ayaan rabaa. Laba siyaabood waan u sameyn karaa. Midda ugu horeysa waxay tahay haddii aad ka dhigto textigan rasterize layer, hadhow kama bedeli kartid colorka. Laakiin haddaad u isticmaasho kaliya masking, haddaad u isticmaasho waxaad ka bedeli kartaa colorska. Hadhow hadda oo fontiska colorkeeda hadduusan ku cajibi gelinin waad ka bedeli kartaa. Marka aniga waxaan u isticmaali doonaa masking ayaan u isticmaali doonaa. meesha aad adiga ka jarayso adiga ayay kuugu xiran tahay. Aniga hadda tusaale ahaan waxaan ka jarayaa waxaan rabaa inaan 4 shay aan ka jaro. OTOS tan inaan ka jaro ayaan rabaa. Aan dhexdooda aan jaro. Si aan u jaro marka hore waxaan tagayaa rectangle marquee tool ayaan xulanayaa. Markaan rectangle marquee tool aan xusto kadib meesha hore marka ugu horeyso inuu ku dooran yahay new selectionka. Kadib waxaad ku soo jiidaysaa inta aad adiga rabto ayaad ku soo jiidaysaa. Marka kasoo qaad aniga waxaan rabaa intaan amal ayaan rabaa selectionka noocan aan sameeyo. Kadib waxaan ka tagayaa add layer mask. Kadib sida ujeedo waxay nagala qariyay qoraalka aan hadda aan sameysan ayaa nagala qariyay. Kadib waxaan keyboardkeen aan ka qabanaynaa control I ayaan leenahay. Sida ujeedo qoraalka dhexda ayaa laga jaray. Kadib waxaad diyaarsanaysaa qoraalka kale aad rabto in aad dhexgeliso. Kasoo qaad qoraalkan kale ayaan rabaa in aan dhexgeliyo. Marka waxaan rabaa in aan inside aan dhexgeliyo ayaan rabaa qoraalkan hadda aan qoray oo inside ah. In aan qoraalka Photoshopka aan dhexda ka jaray inaan dhexgeliyo. Marka hore waan soo drag gareynaa move toolka anigoo isticmaalayo. Waa soo yareynaysaa geesaha ayaad ka soo yareynaysaa. Kadib waxaad la simeysaa qaybta yar aad adiga ka rabto ayaad la simeysaa. Marka intaa amal aad sameyso kadib waxaad ku weyneyn kartaa ilaa iyo esta waad ku weyneyn kartaa qoraalkan oo inside-ka ah. Sidaad ugu weyneyso marka hore waxaad tagaysaa window, kadib waxaad ka sii xulanaysaa properties. Waxaad ka xulanaysaa qaybtan ugu hooseysa ayaad ka xulanaysaa VA-da oo -20 ah ayaad ka xulanaysaa. Waad drag gareynaysaa waxaadna u jiidaysaa dhanka right-ka ayaad u jiidaysaa. Dhanka right-ka qoraaladii isku jireen way kala baxayaan. Mid walbo qayb ayuu aadayaa. Adiga marka intaan amal aan sameyno aan iska cancelno midkan kadibna aan ku soo drag gareyno. Sida ujeedo hadda waxaad dhexgelisay qoraalka ayaa waxaad dhexgelisay qoraal kale ayaad sidaan ku dhexgelisay. In markan maskinka markan u isticmaalo faa'iidada uu leeyahay waxay tahay hadhow haddii aan rabo colorka blackan oo Photoshopka ay ku qoran tahay haddii aan rabo inaan bedeshto in aan bedeli karo. Laakiin haddii aan rasterize layer aan ka dhigo xogaar way adkaanaysaa sida colorska aad u bedeli lahayd. Hadda waxaan rabnaa inaan colorska Photoshopka aan bedelno. Dhanka layerska ayaan tagaynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa xarafka T meesha ay ku qoran tahay. Double click ayaad siinaysaa. Sidaas selection waad ku sameyn kartaa. Waxaad kaloo selection aad ku sameyn kartaa qoraalka textiga Photoshopka inaad dul tagto kadibna double click aad ku siiso. Sidaasna waad ku sameyn kartaa. Kadib waxaan ku xulanaynaa foreground colorska ayaan furaynaa. Kadib colorkan rabno ayaan dooranaynaa. Tusaalaan anaga hadda red-ka oo kale amal ayaan dooranaynaa. Kadib waxaan leenahay okay, kadib move toolka ayaan ku sii dhufanaynaa. Sida ujeedo qoraalkeena colorkiisa waxa loo bedelay red ayaa loo bedelay. Fadlan haddaan kaaga jawaabo su'aashaada like ku qabo videogan. Su'aal walbo aad iga soo weydiisaan dhanka comments-ka waan qortaa. Marka waxaan rajeyn doonaa videoyada soo socdaan inaan idin kaaga jawaabi doono. Marka waa intaas ka faa'iideyso wanaagsan. Fadlan haddaad videogan ka faa'iiday ila garay sina share garay waan ku mahadsantahay daawashada videogan. Waxay idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.